maalin wanaagsan daawadayaal waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan caafimaad qab ku daawanayso waxaan rabaa inaan kuu soo gudbiyo xog iyo macluumaad degdeg ah oo soo kordhay saacadihii la soo dhaafay qodobada xasaasiga ah ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya kiiskii Ikraan Tahliil oo xog culus ay ka soo kordhayso iyo kiiskan oo noqday midkii ugu adkaa oo garsoorka dalka soo mara waxaan kula wadaagi doonaa baaritaanadii la sameeyay macluumaadka soo kordhay xogaha garsoorku ay heleen iyo sidoo kale macluumaadka wararkii ugu dambeeyay ee arrintan la xiriira ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii allaha awoodda uu raali ka noqdo annaguna aan idinkugu soo gudbin doono waxaa qayb ka noqonaya ciidanka beelweynta warsangeli oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka bilaabay gobolka Sanaag iyo ciidanka Somaliland oo heegan culus galay ceerigaabo oo xilligan dhaqdhaqaaqyada ugu cuslaa ay ka soconayaan haddaba maxaa ka jira in ciidanka beelweynta warsangeli ay doonayaan in ay weeraraan magaalada la yiraahdo ceerigaabo ee gobolka Sanaag xogta macluumaadka wararkii ugu dambeeyay ee dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka bilowday duleedka magaalada ceerigaabo ayaan kula wadaagi doonaa qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii alla laga helo waxaa qayb ka noqonaya Baydhabo oo qarka u saaran dagaal iyo lafta gareen oo diiday in uu wada hadal la galo dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya kadib doorashadii shalay ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaan kula wadaagi doonaa xog iyo macluumaad culus oo ka soo kordhaya doorashadaasi iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada xilligan ay wadaan ciidanka maamulka koonfur galbeed ee la doonayo in lagu difaaco magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan haddii eebaweyne uu qadaro waxaa qayb ka noqonaya beesha Ciise oo dagaal isku diyaarinaysa xilligan ugaaska guud ee beelweynta Ciise ugaas Mustafa oo xilligan ku hanjabay in ay qaadi doonaan dagaal ciidanka Somaliland looga saarayo magaalada Saylac haddaba maxaa ka soconaya deegaano ka tirsan gobolka Salal oo ciidanka ee beelweynta Ciise ay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyadii ugu xooganaa waxaan kula wadaagi doonaa xog iyo macluumaad arrintaasi ku aadan oo saacadihii la soo dhaafay soo korortay qodobada iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaan kuu soo gudbin doonaa daqiiqadaha aan halkan ee markaasi idan kala hadlayo soo dhawaada daawadayaal qaybaha ugu horeeyay ee wararkeena ayaan ku bilaabaynaa laakiin inta aan guda gelin waxaan ka codsanaynaa haddii aad nagu cusub tahay in aad soo dhawaatid oo subscribe saartid boggan sidoo kale like tiraada muuqaalkan si saaxiibo adiga kula mid ah uu gaaro sidoo kalena si share garay soo dhawaada daawadayaal mar kale haddii aad horey noola joogtay waad ku mahadsan tahay haddii aad nagu cusub tahayna waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan ku bilaabaynaa kiiskii Ikraan Tahliil ayaa xog culus ay ka soo kordhaysaa xilligan iyadoo kiiskan uu noqday kiiskii ugu adkaa ee soo mara garsoorka dalka tan iyo intii dib u habaynta lagu sameeyay garsoorka dalka sidoo kalena loo dhiibay dad wax bartay oo ku fiican baaritaanka iyo kala rogroga soo saaritaanka xogaha daahsoon iyo kuwa qarsoon intaba macluumaad culus ayaa laga helayaa xilligan xaalka guud ee ka soo kordhaya baaritaanadii ugu dambeeyay ee lagu sameeyay kiiskii Ikraan Tahliil oo noqday mid markaasi hadalhayn badan ay ka dhalatay sidoo kalena ee laga dhursugayo garsoorka natiijooyinka ay ka soo saari karaan macluumaad iyo xogo la yaab leh ayaa ka soo kordhaya xilligan baaritaanadii la sameeyay ee maalmihii ugu dambeeyay garsoorka dalka ay rogrogayeen ayaa la tilmaamay in ay ka soo baxeen natiijooyin hor u dhac ah kuwaasi oo la shaaciyay in ay yihiin kuwa markaasi dad badan ay ku mutaysan karaan in tiirka toogashada la geeyo sidoo kalena ee markaasi dabcan xabsiga lagu sii ogaado inta baaritaanadaasi natiijooyinkooda ay cadaanayaan macluumaadkii ugu dambeeyay ee aanu helayno ayaa waxa ay tibaaxayaan in garsoorku ay heleen xogo iyo macluumaad qiyaasaya in nafta la dhaafiyay Ikraan Tahliil sidoo kalena waxa nafta lagu dhaafiyay ay ahaayeen rasaas dad badanna la tilmaamay in farahooda laga helay markii dabcan baaritaano dhinaca lafaha ah lagu sameeyay meedkii dhawaan la helay sida mawduucyada iyo xogaha xasaasiga ah ee garsoorka dalka laga helayo ay xaqiijinayaan wararka iyo macluumaadka dheeriga ah ee hadda soo kordhaya ayaa tilmaamaya
in kiiskan uu noqday mid aad u daba dheeraaday sidoo kalena ay soo dhexgaleen hakintiisana ay timid kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ay isqabteen arrintaasi oo keentay in dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya hakad ay ku keento kiiskan iyo baaritaankiisa iyo sidoo kale natiijooyinka horudhaca ah ee laga heli karo kiiskan iyo qaabka markaasi uu noqonayo macluumaadka aanu helayno ee cadeymaha ee markaasi la tilmaamay in laga helay ayaa waxaa qayb ka ah in kiiskan la ogaaday in rag badan oo markaasi horay uga mid ahaa sirdoonka dalka ay markaa soo jeediyeen in markaa kiiskan sidaasi loo rido halka dad badanna dabcan la tilmaamay in ay fuliyeen hawsha kiiskan qofka la helay ee meydka ah ayaa la tilmaamay markii baaritaanada lagu sameeyey in la helay jirdilo loo geystay jirkiisa oo ilaa lafaha gaaray arrintaasi oo muujinaysa in inta aan la dilin ka hor Ikraan Tahliil ay markaasi la kulantay dhibaatooyin dhinaca jirka ah isla markaana dabcan ay u geysteen raggii doonayay in ay nafta dhaafiyaan wararkii ugu dambeeyay iyo xogaha aanu helayno ayaa sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in ay socdaan baaritaano kale oo dheeri ah oo la doonayo in kiiskan lagu soo afjaro sidoo kalena dhammaantiis kiiskan laga dhigo mid markaasi dabcan la soo taagayo dadkii ka dambeeyey maxkamadda shuute sidoo kalena la horgeynayo macluumaadka iyo cadeymaha dheeriga ah ee soo kordhaya ayaa hoga tusaaleynaya in kiiskan uu noqon karo mid garsoorka waqti badan ku qaatay in ay baaritaano ku sameeyaan laakiin la doonayo in markaasi kiiskan uu noqdo mid markaa dabcan xilligan muujinaya in kiisku uu noqon karo mid markaasi garsoorka dalka iyo sidoo kale xubnaha doonaya in markaa kiiskan ay soo bandhigaan in ay la xiriirinayaan rag markaasi horay uga tirsanaa dabcan hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed hooyada dhashay Ikraan Tahliil ayaa la tilmaamay in weli ay ka dhirsugayso in ay cadaalad u hesho gabadheeda si kiiskan uu u noqdo mid lagu soo gabagabeeyo dabcan natiijooyinka rasmiga ah ee cadaalad u raadinta gabadheeda arrintaasi oo muujinaysa in ay si aad ah u doonayso hooyada dhashay Ikraan Tahliil in ay hesho cadaalad gabadheeda dad badan oo kiiskan muddooyin dheer u doodayay ayaa ilaa iyo iminka la la'yahay halka jaan iyo cirib ay dhigeen tan iyo markii baraha bulshada lagu baahiyey kiiskan sidoo kalena la helay meydka qof loo malaynayo in uu yahay Ikraan Tahliil oo markii dambe la cadeeyay in uu qofkaasi ahaa Ikraan Tahliil sidoo kalena baaritaano la tilmaamay in lagu sameynayo xogaha iyo macluumaadka dheeriga ah ee aanu helayno ayaa ah kuwa aanu markaasi soo xiganay inkastoo markaasi aysan jirin macluumaad dheeri ah oo markaa macquul ka dhigi kara in xogaha oo dhammaystiran la helo iyo sidoo kale dadka lala xiriirinayo in ay kiiskan ku lug leeyihiin laakiin macluumaadka ayaa waxa ay muujinayaan iyo xogaha daahsoon ee aanu helnay in natiijooyinka horudhaca ah ee soo bixi kara ay yihiin kuwa markaasi ka turjimaya kuwo dabcan keeni kara in markaasi dad loo maxkamadeeyo kiiskan sidoo kalena markaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida la soo hor istaajiyo xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa dhowr jeer oo hore waxaa la soo hor istaajiyey rag badan oo loo haysto kiisas kala duwan oo qaarkood ay u badan yihiin kiisaska maleeshiyaadka kooxda shabaab laakiin waxa ay noqdeen kiisaskaasi kuwa dhammaantoodba laga gungaaray sidoo kalena markaasi si cadaalad ah u dhacay waxaana la tilmaamay in maxkamadda shuute haddii la horgeeyo raggan cadeymo iyo markhaatiyo ku filanna loo helo in markaasi ay noqon karto in kiiskan uu cadaalad heli karo sidoo kalena tiirka toogashada la geyn karo rag badan oo arrintan lagu tuhunsan yahay wararkii ugu dambeeyay ee aanu helayno ayaa tilmaamaya in hooyada dhashay Ikraan Tahliil ay qabsatay looyaro doonaya in ay markaasi u doodaan gabadheeda sidoo kalena qayb ka ah xubnaha ee baaritaanada xilligan sameynaya ee markaasi ka howlan hawsha la xiriirta in baaritaano dhab ah lagu sameeyo kiiskan iyo sidoo kale qaabka markaasi dabcan xilligan uu u dhacayo wararkii ugu dambeeyay ee aanu helayno ayaa tilmaamaya in kiiskan uu noqon karo mid markaasi sii socda iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya xilligan ay doonayso in ay qaado tallaabooyin culus oo lagu doonayo in kiisaskan markaasi dabcan lagu sii ambaqaado sidoo kalena markaa kiisaskan ay noqdaan kuwa cadaalad heli kara
cadaalad u raadinta kiiskan ayaa noqday mid markaasi muddo dheer ee soo jiitamayay isla markaana soo daba dheeraaday ilaa haddana waxaa la tilmaamay in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo lagu doonayo in kiiskan markaasi cadaalad loo helo inkastoo baraha bulshada iyo sidoo kale dadka oo darasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya ay tilmaameen in kiiskan la doonayo in dib loo soo nooleeyo wixii ka dambeeya 15 May markaasi oo ah marka dabcan xilligan uu ku eg yahay muddaxileedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee gabagabada sii maraya waqtigan aanu ku jirno haddaba wuxuu ku soo kordha baaritaanada la sameeyo iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada culus ee soconaya wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii Allah ugu dalo raali ka noqdo markana ciidanka beelweynta Warsangeli ayaa dhaqdhaqaaqyo xoog leh waxa ay ka bilaabeen duleedka magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag halkaasi oo dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa xilligan ay ka soconayaan ciidanka beelweynta Warsangeli kuwa beelweynta ee markaasi dhulbahante iyo ciidanka maamulka waqooyi bari ayaa xilligan wada dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogana oo ay doonayaan in ay uga gungaaraan natiijooyinka wax ku oolka ah ee laga doonayo in laga soo saaro magaalada la yiraahdo Ceergaabo ee gobolka Sanaag oo Cabdulqaadir Firdhiye kal hore uu amray in lagu qaado weerar culus isla markaana lagu bartilmaameysanayo xubnaha ee markaasi ka tirsan ciidanka maamulka Somaliland ee halkaasi ku sugan wararkii ugu dambeeyay ee aanu helayno ayaa waxa ay bidhaaminayaan in xilligan ay jiraan markaasi dhaqdhaqaaqyo aad u fara badan oo ay wadaan ciidanka maamulka waqooyi bari iyo kuwa beelweynta Warsangeli saacadii la soo dhaafay sanad ciidan iyo hub aad u culus oo ay markaasi garwadeen ka ahaayeen ciidanka maamulka waqooyi bari ayaa waxa uu gaaray deegaano ka tirsan markaasi gobolka Sanaag gaar ahaan afaafka hore magaalada Ceergaabo oo ciidanka militariga maamulka Somaliland ay dhaqdhaqaaqyo culus ka wadaan beesha Warsangeli saraakiisheeda oo xalay kulamo kala duwan ku qaatay deegaanka lagu magacaabo Qadariya oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa amar ku bixiyay in la qaado tallaabooyin culus oo looga hortagayo kuwa ay markaasi xilligan maleegayaan ciidanka militariga Somaliland iyadoo deegaanada Qadariya iyo sidoo kale shidana ay ka soconayaan dhaqdhaqaaqyo militari oo aad u xoog badan oo markaasi lagu doonayo in lagu bartilmaameysado xubnaha markaasi ka tirsan ciidanka maamulka Somaliland ee ku sugan qaybo kamid ah magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag xogaha iyo macluumaadka aanu helayno ayaa sidoo kale waxa ay cadeynayaan in ciidanka militariga maamulka waqooyi bari xilligan qudhoodu ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo xoogan Warsangeli iyo dhulbahanto oo iskaashanaya ayaa doonaya in ay la wareegaan magaalada Ceergaabo waxaana la tilmaamay in saacadaha soo socda laga cabsi qabi karo in uu dhaco dagaal sababi kara khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada soo kala gaari kara maadaama xilligan dhinacyadu ay yihiin kuwa markaasi isku midiya sahanaya sidoo kalena doonaya in ay markaasi duulaan culus ee isku qaadaan fariimahan jabaad ah ayaa la tilmaamay in saraakiisha kala hogaaminaysa ciidankan ay hawada isku mariyeen iyaga oo markaasi doonaya in magaalada Ceergaabo ay noqoto magaalo ay gacanta ku dhigi karaan ciidanka beelweynta Warsangeli iyo sidoo kale kuwa maamulka waqooyi bari ee xilligan wada dhaqdhaqaaqyada culus ee lagu barataarayo xaalka guud ee dhinaca markaasi la wareegitaanka deegaanada ka maqan gacanta dawladda ee maamulka waqooyi bari xogaha la helay ayaa tilmaamaya in Warsangeli iyo dhulbahanta xilligan heshiis culus ay kala saxiixdeen iyaga oo doonaya in dhinacyadu ay qaadaan weerarkii ugu cuslaa madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdulqaadir Firdhiye iyo sidoo kale ku xigeenkiisa ayaa xalay la soo warinaya in kulamo xasaasi ah ay ku yeesheen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo ciidanka ku sugan ee markaasi afaafka hore ee jiidaha dagaalka la faray in ay goobahooda ku ekaadaan sidoo kalena ay markaasi amba qaadaan howlgallada ka dhanka ah ciidanka militariga maamulka Somaliland ee xilligan dhaqdhaqaaqyada culus ka wada deegaanada iyo degmooyinka gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo muhiim ay u tahay maamulka waqooyi bari in ay la wareegaan sida uu tilmaamay mid kamid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidanka oo sheegay in aan la aqbali karin in Ceergaabo xilligan ay gacanta ku sii hayaan ciidanka maamulka Somaliland laakiin generaal Mayal adag oo lagu magacaabo Mahad Cambaashe ayaa hogaaminayay ciidankan mana sahlana sida ay dadka qaar qabaan in Ceergaabo gacanta lagu dhigo sidoo kalena lagala wareego ciidanka militariga Somaliland iyo sidoo kale ciidamada kale ee markaa isbahaysanaya ee jabhadaha ah ee markaa ku sugan magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag xaalka guud ayaa u muuqanaya mid si cuslaanaya iyadoo deegaano badan oo ka tirsan gobolka Sanaagna xilligan ay ka taagan yihiin xiisado dagaal oo sababi kara sida la tilmaamay in ay markaasi dhacaan duulaan culus isla markaana dabcan keeni kara khasaare iskugu jira dhimasho
dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada soo kala gaari kara haddaba xaalka guud ee deegaanada iyo degmooyinka maamulka waqooyi bari ayaa xilligan u muuqanaya kuwa markaasi aad uga sii daraya marka loo eego xiisadaha dagaal ee xilligan taagan iyo sidoo kale hanjabaadaha culus oo ay hawada isku marinayaan dhinacyada markaasi halkaa ku wada dagaalamaya wuxuu kusoo kordho warara adiga ayaa ugu horeeya cidda daawata ama markaasi maqasha waa hagaag qaybaha kale ee wararkeena ayaan markana sii amba qaadaynaa baydhabo magaalada baydhabo waxa ay qarka u saaran tahay in uu ka dhaco dagaal aad u culus oo u dhaxeeya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen uu hogaaminayo ee doonaya in ay difaacaan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay baydhabo waxa ay diiday wada hadallo ay la gasho dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya si loo dhameeyo khilaafka culus ee muddada dheer ka dhex taagnaa maamulka Lafta Gareen uu hogaaminayo iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud xogta iyo macluumaadka la helayo waxa ay tilmaamayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayso in ay wada hadal ku xalliso xiisadda ka taagan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay laakiin waxa la tilmaamay in Cabdicasiis Lafta Gareen arintaasi uu ka biyadiiday sidoo kalena uu markaa ciidamo aad u fara badan dhigay duleedka magaalada baydhabo oo markaa cabsi xoogan laga muujinayo in ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ay isku dhacaan ciidamada ayaa la tilmaamay in ay isku jiraan wax ka yar dhowr iyo 20 kilomitir waxaana ciidankii ku sugnaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay galeen heegankii ugu cuslaa iyadoo ciidanka militariga Soomaaliya oo wata gaadiidka dagaalka iyo hubka nuucyadiisa kala duwan ay ku sugan yihiin duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay sida ay saraakiisha ciidanka inoo xaqiijiyeen sidoo kalena laga dheehan karay muuqaaladii dabcan la soo bandhigay oo baraha bulshada ee markaasi laga dareemayay dhaqdhaqaaqyadooda xogaha iyo macluumaadka aanu helay ayaa sidoo kale waxa ay tibaaxayaan in ciidanka markaasi militariga Soomaaliya xilligan lagu amray in ay qaadaan duulaan culus sidoo kalena ay markaasi dabcan soo qabtaan Cabdicasiis Lafta Gareen oo shalay isku doortay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo ayaa waxa u hambaliyeeyay madaxdii hore ee xubnaha mucaaradka ah ee ka soo horjeeda dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynihii sagaalaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo imika ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho sidoo kalena markaasi doonaya in dabcan dowladda federaalka Soomaaliya marka la gaaro 15 May in uu kala hor yimaado mucaaradnimadii ugu adkayd arintaasi oo muujinaysa in ay markaasi uga sii darayso xaalka siyaasadeed iyo dhaqdhaqaaqyada culus ee xilligan markaasi taagan dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wajahaysa caqabadihii ugu xooganaa oo ay kala kulantay maamulka koonfur galbeed waxaana sidii loo maleynayay noqon waayay arinta la xiriirta in weerar lagu qaado magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay sidoo kale waxa la tilmaamay in beesha caalamka ay ka digeen dagaal ka dhaca magaalada baydhabo xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale looga yeeray xirada xalane iyadoo xilligan ay u muuqanayso in beesha caalamka ay soo faragelinayso arinta ka taagan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo ah mid aad u adag sidoo kalena sababi karta dhibaatooyin dhinaca markaasi dagaalka ah haddii aan waxba laga qaban waxaan xaaladdu ay u muuqanaysaa mid markaasi si adkaanaysa marba marka ka dambaysa haddaba wixii ku soo kordho oo wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii Allah ugu dilo uraale ka noqdo ugu dambeyntiina beesha ciise ayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan waxa ay ka bilowday magaalooyin ay ka mid tahay Saylac iyo sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka Salal suldaanka guud ee beelweynta ciise ugaas Mustafa ugaas Maxamed ugaas Ibrahim ugaas Mustafa Maxamed Ibrahim ayaa tilmaamay in ay qaadi doonaan weeraro culus oo la doonayo in ciidanka Somaliland looga saaro magaalada la yiraahdo Saylac oo ka tirsan gobolka Salal waxaana arintaasi ay muujinaysaa in mar kale uu soo laba kaclaynayo dagaalkii u dhaxeeyay ciidanka beelweynta ciise iyo sidoo kale ciidanka beesha Warsangeli xogaha iyo macluumaadka aanu helayno ayaa sidoo kale waxa ay bidhaaminayaan in ay soconayaan dhaqdhaqaaqyo xoog leh oo ku aadan in ciidanka beesha ciise ay doonayaan in ay la wareegaan magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag xaaladda ayaa u muuqanaysa mid ka sii daraysa marba marka ka dambaysa iyadoo tallaabooyinkan culus oo ay qaadayso maamulka markaasi beesha ciisana ay noqonayaan kuwa markaasi keeni kara in ciidanka militariga Somaliland iyo sidoo kale kuwa maamulka markaasi beesha ciise ay isku dhacaan xogaha iyo macluumaadka la helayo ayaa tilmaamaya in ciidanka militariga Somaliland ay amar ku bixiyeen in aan la qaadi karin wax dagaal ah
iyagoo ugu hanjabay ciidanka markaasi beesha ciise in ay tallaabo ka qaadi doonaan haddii ay isku dayaan in ay weerar ku qaadaan fariisimaha ciidanka militariga somalilan ay kaga sugan yihiin gobolka salal gaar ahaan magaalada la yidhahdo saylac ee gobolkaasi magaalada saylac dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay dagaallo aad u culus oo qaraar kuwaasi oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana mar kale la tilmaamay in xaaladda muuqanaysa xilligan ay hoga tusaaleynayso in ay qarxi karaan dagaallo culus islamarkaana sababi karaa dhimasho iyo dhaawac maadaama xilligan dagaalada ka dhacaya deegaanada iyo degmooyinka gobolka ee markaasi salal ay markaa noqonayaan kuwo markaasi keeni kara in dhinacyadu ay isku dhacaan waa beesha ciise iyo ciidanka beelweynta waa ciidanka militariga somalilan ciidanka jabhadda beelweynta ciise ayaa maalmihii lasoo dhaafay helayay hub iyo saanad ciidan oo kaga imaanaysay dhinaca jabuuti iyo sidoo kale dhinaca markaasi dabcan markaa dhinaca dowlad deegaanka soomaalida arrintaasi oo la tilmaamay in ay muujinayso inuu dhici karo duulaan culus oo ka dhan ah ciidanka militariga markaasi somalilan wuxuu kusoo kordho oo wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii allah awoodda la raalli ka noqdo haddii aad nagu cusubtahay waxaan ku leenahay fadlan nagu soo biir like sar muuqaalkan subscribe dhe boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada joogtada halkan uga helaya wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan idinkugu soo gudbinayno waa mahadsantiin daawadayaal soo dhawaada waxaan idin leenahay markaasi maalin wanaagsan